aroos ka horreeyay ها abdeed ahaa هي laakiin waa dareemi kartaa in aroosku iska wala badan yahay هي سبه صصعب صوبة Sigba, wow. واو صوبة بحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسكرين ويا احنا صح وايا marka waxa weeye asxaabta qaaliga xogaa dhibaa jirto on dareemaya marka asxaabta qaaliga horta waxaan leeyahay soo dhawaada isku soo laabasho wacan run ahaantii aroosyo badan meherro badan safaro badan hayay dooniga dareemaya ugu dambeyn asxaabta qaaliga waa imaanay alxamdulilah run ahaantii mamar waan dhaartan Soomaaliya والله sila qurxan soo maaha marwada aan dhahayaa marka hore waxay ahayd ماريا ها marka asxaabta qaaliga horta soo dhawaada alxamdulilah hadda waa caafimaad qabnaa ilaahay wax kasta waa noo dhameeyey أديان ilaahay waxa weeyaan dad badan oo ku riyoon jiray maariye iyo waxa weeyaan يا saygeeda marka alxamdulilah ilaahay riyada waa noo rumeeyey alxamdulilah سيج يحاجي حاجي دم ويعني مقشد أما أنا كقوله حاضرة wallahi run ahaantii waxaan dareemaa mas-uuliyad waa marka hore iska yohor baan hayo marka hore iska yohor baan hayo dareemaysaa qof kasta miska iska ableeyahay mas-uuliyad badan ma saaran laakiin waxa weeyaan horta waxaan leeyahay labadii qof ee sir naawiliya saamilaaska yar eegaysa daaqada maartaan u eegayo kale waxa weeyaan ha iska soo gabagabeeyo ilaahayna calaf isku daro waxaan leeyahay jacaylku hawaaro kasoo noqod wanaagsan kulli marwadu waxa weeyaan marwo aad youtube-ka waxba jiro youtube-ka ma garanay mala faraka yaalay waxa weeyaan wixii aroos ka horreeyay abdeed ahaa haye laakiin waa dareemi kartaa in aroosku iska wala badan yahay haye sube soo baxa wow soo wada baxa marka arooska inta diyaarintiisa waqti iska qaadataa intaasna waa ku mashquule oo waxaa laga yaabaa almost bil haddii ka badnayn waa ka maqanahay taasna waxay ahayd waa isdiyaarinayno maasha allah arooskii safaradii wixii marka alxamdulilah maanta waa wada joognaa alxamdulilah ilaahay waxaan leeyahay intan in ka badan ba ilaahay noo siyaadiyo ilaahay nolosha nolol waartaa ka dhigo waxa weeyaan maanta haddaba maxaan idinla soo hor fadhiisanay maxaan maanta idin haynaa ama idinla hor imaanay maxay noqon kartaa talo marwey maadaa u sheegay mise anaa u sheega labada yaa u sheegay aniga u sheeg adigu أنا ماذا أشياء قاعد ماذا أشياء سا هرت لو متوعد سوفنا تنكوات حتى أنا إذا مهاد نقنا إن سنوات ما هيك لا إذا شيء جدونا إن وحان هلكا أسوف دينا أنا جوا ذجرة لما أنتين إنا إذا مهاد نقنا وكاسي فتبركة وسيونا waxaan maqlay marwadii winkii xawayaan ay isbedeshay waxa weeyaan noqotay marwo waxoogaa hadalka dhudhumaya waxa ka jira marka inaan tahay maaragtay marka marwo tahay farqiga hadda ay iga muuqda u dhaxeeyo maasha allah soo wada baxa marka waxa weeyaan marwada hadal lagu badin maayo marka anaa hadlay insha allah biidnillahi tacaala anaa inta dambe noo sii dhamaystiraya horta run ahaantii dee arooskii waxa weeyaan muddo badan baa kasoo wareegtay hadda sida labuyiga aan ka joogno run ahaantii waxa weeyaan dee baraha bulshada kale tiktok waxa weeyaan tiktokeeda waxoogaa uu ka yar xidhan yahay kaygina waa arkayseen waddankaygina waa xidhan yahay marka run ahaantii haddana loo joojin maayo annaga ka xaasila oo run ahaantii annaga joogna waxa weeyaan youtube-ka run ahaantii labadeed wallahi caajis baanu ka nahay oo waxa weeyaan iyaduna kole intii hore dirqi baan ku duubi jirnay ilaahay baa xaalkii ogaa laakiin hadda wada jir baan wada joognaa waxa weeyaan inaan hadda sidii hore iska bedelaan rajaynaya marwey marka insha allah biidnillahi tacaala kole safaro badan waxa weeyaan way soo gashay oo wallahi aad u dheer waana dareemi kartaan marka asxaabta qaaliga horta waxaan si gaar ugu mahad celinayaa walaaladay dhammaan muslimiinta meel kasta ay kala joogaan oo waxa weeyaan igu xidhan meel kasta ay joogaan waalid waxa weeyaan dhalinyaro hawliye inamo waxa weeyaan waayeel aabiyo hooyo de kolley waxa weeyaan run ahaantii dareenka ii muujinayseen markii maariya timid iyo markii waxa weeyaan uu aroos ku dhacayba wallahi run ahaantii dareenka ii muujiseen aad baan uga helay wallahi de wax aan ku turjumi karaya may jirin markaas ay taagnayd oo de waxay iga dhigtay aad ba u mahadsantihiin dareenkana qalbiga ku jiro uma wada mahadnaqi karin de waxa weeyaan dad yowga badan aadka u tirada badan
run ahaantii haddana waxay soo fadhiisay kolley long time bay ahayd oo aan iska kaftamaan dhahay 7 bax baan ku jirnay marka long time baa dee ugu dambeysay waxa weeyaan dee 2 week inaan is arki weyno marka waxa weeyaan hadda aan dee waqtigu noo munaasib noqday waqtigu noo haleelay inaan soo fadhiisano aan idin mahadnaqno waxa weeyaan haddaan naga xumaanin haddaan waqti dheer aan idinka maqnaanay waxa weeyaan ha naguna xumaanin haddaan naguna qabanina waxa weeyaan marka asxaabta qaaliga waxaan leeyahay horta run ahaantii waa mahadsantihiin anagoo hee aad baa mahadsanhay marka waxa weeyaan ilaahay waxa weeyaan haydka jasaaysiiyo qofkii wallaahi adduunka waxa ugu qaalisan waa waqti qofkii ku bixiyey inuu annaga waxa weeyaan ducadana inta horta aan isguursanin ka hor qof walba uu noo ducan jiray ha noqoto kan yar ha noqoto inta badan waxaa u badnaa dad aad u weyn maamooyin aabooyin waa idinkaga mahad celinaynaa ducadiinana aqbalay noqotee maasha allah waxa weeyaan dee duco waalid baa ugu munaasibsan baladhowda ugu khayr badan marka ilaahay waxa weeyaan horta ilaahay waxa weeyaan ha naga jasaa'isiiyo ducadiina waa inagu dhacday waxa weeyaan ilaahay naga uu noo aqbalay inta dambana ilaahay noo sii aqbalo run ahaantii wallaahi waxa ugu qaalisanta waa waqti dad ku bixiyey inay na soo daawadaan juhdi tusaalaha maan siinayaa adiga hadday daawanayaa waxa weeyaan oo runtii anaga nagu xidhan page-kii ku xidhan habeenkii waxaan xil dambe late fan soo galaa live-ka sida imika kale 12 ama 6 saac kolba sad loo yaqaano waxa weeyaan 12 habeenimo aan ka baxnaa 2 habeenimo run ahaantii dee 4,000 baana daawada 2,000 baana daawada 2,000 ma yara 2,000 oo qof markay ku daawanayaan habeenkii laga yaabo inay shaqooyin tegayaan exactly marka run ahaantii waan dareemi karnaa wallahi farxadana siiseen aad waxa nooga qiimo badnayd intaa waqtigana siinayseen marka run ahaantii waan idin mahad celinaynaa waxa weeyaan kula hadal kusii dheeraamayno mar labaad waxaan leeyahay aad baa umahadsantihiin dhammaan waalidiinta dhalinyarta waxa weeyaan oo run ahaantii waqtigooda iyo timekooda iyo juhdigoodaba na siiyey oo waxa weeyaan waxbarasho shaqo every time waxa weeye meel kasta qabanayso noo sheegay oo waxa weeye timeka dib uga dhacay hadduu doono dee hurdada la tagtay marka waxa weeyaan talabaad aan idin hayaana waxa weeye horta aan kaga soo gudubna mahadnaqi oo idin mahadnaqnay kulli ma soo koobi karno dadka soo koobi karmayno qalbigeyga soo wada furfuri karmayno marka ka soo gayoomayno gayoonta ma taqaan horta gayoonta ka soo gayoomayno ma taqaan ka soo gayoonta waxa weeyaan waxa u taqaanaan marka oo kale leeyahay hadalka inta yani ma ku soo koobi karayo intaas leeyahay yani like intaan ma ku soo koobi karo saas waa intaas ma ku soo koobi kari anuna waxaan dhahnaa haddana hadalka bilaabo kolle kasoo gayoomayo okay saas ma dhahdin kolle kasoo gayoomayno anagana waxaa dhahnaa hadalka maamaha yare aad way iga maqan tahay qofkii yaqaan meesha igu soo qorlak balo iga maqan tahay marka waxa weeyaan kolle hadalka haddaan bilownaan maanta kaa soo fursan dhana waan hadlaynaa kasoo gayoomayno hadal haddaan mar bilowno kasoo gayoomayno ma dhanan aniga ma soo dhamaan karno kolle marwadu way lowday kawantii ugu soo qorasay wax xasuusto marka waxa weeyaan talabaad aan idin haynaana waxa weeyaan kolle insha allah biidnillahi tacaala horta ilaahay naga aqbalo waxa soo dhow carafo waxa weeye ilaahay naga aqbalo ilaahay ducada waxa weeyaan iyo waxa weeyaan khayrka iyo wax kastaba ilaahay naga aqbalo waxa weeyaan talabaad run ahaantii barnaamij baan idin haynaa barnaamijkaasoo noqon doona mid taxana ah oo waxa weeyaan 10 tallaabo hore u qaad fahantiin insha allah biidnillahi tacaala kolle barnaamijkaas barnaamij dheer buu noqonayaa oo isla socod wanaagsan barnaamijkan adiga hadda i daawanaya faa'iido ku noqon doona insha allah biidnillahi tacaala isbedel baad ku dareemi doontaa insha allah biidnillahi tacaala wiig gudaheed marka waxa weeyaan run ahaantii dee ma dhahayo anu intaan soo duubo ma dhahayo saa laakiin waxaan sameynayaa sida ugu fudud aduguna yani isbedel ku dareemi karto ayaan insha allah kugu soo bandhigi doonaa insha allah biidnillahi tacaala waxaan leeyahay yana laga caajisin run ahaantii waxaan leeyahay anagana waa soo laabanay haye hadda ana caajisay saa caajisin hadda is caajisin anaa caajisin kolle waxa weeye marwadu hadalkan kaa qaatay wax hadal mid ku daraysa ma intaas iga egtahay intaas iga egtahay wallaahi insha allah biidnillahi tacaala horta taliya ku dhaamsan waxa weeyaan kolley dadka tiktok-da waxa weeyaan nagala socdaa tiktok nagala socdaa taliyaan dhahnaa moogtay aan iska taliya saayasa marka waxyaaban caan ku ahayn bay ka mid tahay marka run ahaantii waxaan leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin markasta ilaahay baa mahaddaas kale oo ilaahay kaas caafimaad iyo waxa weeyaan dee weji qurxoon waxa weeyaan wax kastaba dee noo fududeeyey inaan maanta video iska duubno inaan caafimaad qabno inaan halkaa idiin fadhino inaan idiin soo bandhigno dee mahadda ilaahay baa iskale alxamdulilah baan leenahay markastana
waxa weeyaan insha allah bidna tacaala nala socod wanaagsan naga caajisina kale anagu iska caajis baan nahay idinkuna ha nagu darsamina saasa ka dagaalantay marwo waxa weeyaan ilaah ku barakay marwo waxa weeyaan insha allah bidna tacaala waxa weeyaan isbedel baa dhici doona sida ugu dhaqsaha badan idinkuna nala socod wanaagsan aad baa umahadsan tihiin markasta waxaan leenahay waa idin jecel nahay sharaf waxaan kusoo xidhnaa talo wax gaar ma samaysana aan kusoo xidhno waxaan dhahnaa jacaylka waaraan dhahnaa jacaylka waaro insha allah billahi tacaala ilaahay nolosha inoo fududeeyo inta dambe ilaahay inoo fududeeyo waxaan leeyahay sharaf karaamo jacaylka waaro